waxa halkan shirkan waxa weeye shir waxaad ka aragtaa magaca lagu qoray saansaankiisa siduu yahay jawigiisa xilligu ku beegmay oo xasaasiya intaba waxaad aragtaa inuu magacaas tawfiiq inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala u aqbalay ilaahayna waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa ta'aala in ay is-afkaradka ay isku afkarteen inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala u aqbalo shirkaas waa shir aad iyo aad xilligu ku beegmay xasaasiga cid waliba cid imika sidii hore looga dhawaajiyay gudoomiyuhu uga dhawaajiyay cid hadda oo kala shir qabataa ma jirto cid waliba waxay ka baqdaa inay fadqalalo kaga timaado iyo kala qaybsanaan laakiin halka waxa ka muuqata beeshu inay taladeedu midaysan tahay in ay tawfiiqdeedu midaysan tahay ilaahayna mar labaad waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala taladeeda uu mideeyo oo uu taladeeda ururiyo oo dadka kale ee jaarka la'ana ay sidaas oo kale ku daydaan inta markan dhaafo qodobada halka laga akhriyay qodobka ugu horeeya diinta aad iyo aad baa looga hadlay waxaan la qabaa raggii hore ka hadlay qodobka diinta waa inaynu aynu dhaqan gelinaa oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiisa inaga ku noolaanayna inaga ku intifaacsanayna inaynu diinta fidino oo isgaarsiino qodobka raggii hore ka dhawaajiyay baan la qabaa qodobada kale qodob la diidaaba kuma jiro maanta laakiin waxa wadnaha farta lagaga hayay oo in badan isweydiinaysay war shirka xilligan la qabanaya muxuu yahay talo madaxweyneynu leenahay madaxweyneenu waxa weeye suldaanka guud isaga wax inoo qaaday inaynu meel wada marro oo aynu xusbigii aynu awalba ahayn meel kale mari mayno xusbigii aynu awalba ahayn inaynu taageerno ayaynu isla qaadanay halkan aanoo ka faa'iideysanaya oo munaasabadan ka faa'iideysanaya waxaan baaq uga dirayaa meel kasto ay joogaan beelaha habar jeclo meel kasto ay joogaan waxaan kaga faa'iideysanayaa in ay taageeraan xusbiga kulmiye oo lagu tashaday oo awalba ay ahaayeen ma aha imika taageeri maayaan awalba way ahaayeen waana taageeraynaa horena awalna waa u ahayn imikana waa isla qaadanay inaynu taageerno waayo waxa la yidhi geel duq baa loo tumaa odaygeennii baa inoo qaaday oo talaynu ku qaadanay wixii taladaa ka baydhsanna ilaahay waxaynu uga baryaynaa subxaanahu wa ta'aala inuu soo hadeeyo oo caqli wanaagsan caqliga ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku soo celiyo waxa weeye odhan mayno waa caasi waalidiin odhan mayno